kulankani lagu daahfurayay barnaamijka shaqo qaran oo hore ugu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxay ka dhacday xarunta jaamacadda Hargeysa si halkani jaamacadda Hargeysa tababarka looga bilaabay 120 hablood oo ku guuleystay barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska iyo gudoomiyaha shaqo qaran ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha shaqo qaran halkaas uga soo jeediyay 120 kani hablood inay waxyaabo badan ay wadankooda ku soo kordhiyaan asagoona halkaasi hadallo dhiirigelin iyo waliba dardaaran uga soo jeediyay inaad ka faa'iideysataan muddada halkan joogtaan maaha class inaad timaadaan iska noqotaan maaha inaad 3 bilood u dhamaysataan oo dabadeedna certificate qaadataan inaad ka qayb gasheen barnaamijka shaqo qaran maaha ujeedada ka dambaysa inaad hadhow shaqaaleyn iyo arrimo kale heli doontaan taas kaliya maaha maanta inaad bilowdaan wax ka qabashada waxyaalaha la idinku tababarayo oo mujtamaca qoyska ka timid aad ka bilowdo u nasteexayso wixii muhiim ah horumarinta bulshada wixii qabyaalada yareynaya wixii xumaanta mujtamaca iyo iimaha daweynaya waxa soo dhan ka qayb qaadataan waa arrin aad u muhiim ah mas'uuliin batiin kulligiin jaamacadda Hargeysa aad baan ugu mahadnaqaynaa martigelintaas ay diyaarisay hoolka quruxda badan oo ku wada qaadan doontaan class macallimiin idin soo xulayso aqoon sare leh oo waxyaalaha tababar ku qaadanaysan idin siin doona hadii la yiraahdo muddada waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska kaasi oo halkaasi hadalahooda tusaaleyna iyo waliba dardaaran uga soo jeediyay 120 kani hablood dadka la doonayo inay bedelaan waa idinka waxay ka qaban kartaan in aad ka qabataan idinka la doonaya waliba idinka xalkeeda isa saaran ma aha ka rag oo kale waa mid ka duwan wadanka waxa la yiraahdaa wadanka hooyo lama yiraahdo wadanka aabaha marka lagu faanayo wadanka waxa la yiraahdaa wadankayga hooyo waayo hooyooyin baa noqon doontaan caruur baa dhali doontaan haddii Ilaahay yiraahdo qof waliba gabadh wal oo halka fadhidaa mas'uul reer dhanbe ka noqon doonta reerkaasi markaa sida ugu soo hanuuniso in reerkaasi wadanka ku xidhmo oo noqdo qof wadani ah oo garanaya waajibka laga doonayo iyo isagu xuquuqda uu leeyahay inta weeyaan wadanadu ayaa la iman doonta waa Maxamed Xuseen Ibrahim Zam News TV magaalada Hargeysa